السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن خيارتنا داونيسا idilkiin baa meel kastoo aad joogtaan. subax wanaagsan khiyaaray meel kastoo aad nagala socotaan. waa subaxnimo Arbaca taariikhduna ay tahay 26 bisha June sanadka 2024. dabcan marka aan subax soo galo oo war degdegana aan wado war culus ayaa jira. haddaba barnaamijkii saddexaad oo xalay saq dhexe aan duubay waxaan kaga hadlay in dab xoogan uu ka kacay saldhig ciidanka Israa'iil ay ku leeyihiin magaalada barakaysan ee Qudus. barnaamijkaas waxaan ku sheegay in dabku uu socday tafaasiilna aan laga hayn, Israa'iilna aysan wax wara soo saarin. saldhigga meel ku dhow warar noocaasa ayaa socday. hadda wararkii waa isa soo tareen, war cusub ayaa ka soo kordhay saldhiggii gubanayay. waxaa la leeyahay saldhigga waxaa gubay dadaa gubay, waxayna ku soo carareen magaalada Quds ayay soo galeen. dabcan Falastiiniyiin ayay uga shakisan yihiin inkastoo aysan weli si dhaba u sheegin, laakiin ciidamada Israa'iil ee saldhigga ku jiray ayaa soo baxay. warbaahintoodu waxay leedahay meeshu dabka ka kacay saldhigga ma ahayn ee meel jaamacada iyo saldhigga meel u dhaxaysa dhul bannaan ayuu ahaa. dadka qaarna waxay isweydiinayaan dhul bannaan hadduu yahay qaraxyadii wixii la maqlayay maxaa keenay. marka shaki badan ayaa ku gadaaman sida ay wax u dhaceen ayaa la leeyahay. haddaba marka intaanan tafaasiil iyo wixii falanqeeyaashu ay ka yiraahdeen aan u gudbin, marka hore warbixin saakay laga qoray iyo sida xaaladdu ay tahay ayaan idinla xiriirayaa. haddaba waxaa la leeyahay Al Jazeera leedahay idaacadda ciidanka Israa'iil bayaan ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in dab weyn uu ka kacay meel ku dhow saldhigga la yiraahdo Ofrit. waxaana ay sheegtay in damintiisu ay ka shaqaynayaan 12 kooxood oo kuwa damdamiska ah ama baabuurta damdamiska ah. waxaana la sheegayaa in baaritaankii uu socdo, laakiin ay jiraan dad la tuhmayo inay dabkaasi si ula kac ah halkaa uga shideen. haddaba booliiska Israa'iiliyiinta wuxuu sheegay isagana bayaan uu soo saaray aroortii hore saakay, waa waqti dambe xilliga salaada subax. waxay leeyihiin kooxaha damdamiska ayaa ka shaqaynaya inay la tacaalaan oo ay damiyaan dab xoogan oo ka kacay meel bannaan oo ku dhow saldhigga ciidamada militariga ee la yiraahdo Ofrit. wuxuu sidoo kale dabku saameyn ku yeeshay meel ku dhow isna jaamacadda cibriga ee magaalada Qudus. haddaba warbixinta Al Jazeera qayb kale ayay qoraysaa. waxay leedahay dab weyn ayaa wuxuu ka kacay magaalada Qudus ee xoogga lagu haysto. booliiska war ay soo saareen aroortii hore ee saakay waxay leeyihiin cid wax dhibaato uu ka soo gaaray dabka ilaa hadda ma jirto. waxaanu wadnaa baaritaan, waxaa jira dad la tuhmayo inay dabka iyagu shideen oo ay si ula kaca u shideen. haddaba waxaa leeyahay waxaa socda baaritaano iyo howlgallo ciidanka Israa'iil ay ka bilaabeen deegaanada ku dhow saldhigga militariga ee dabka uu ka kacay. waxaana la sheegayaa in xaafadda la yiraahdo Al Ciisaawiya ee magaalada Qudus ay ciidamo aad u fara badan ay xoog ku galeen oo kuwa gumaystaha ah. waxaana ay sheegeen inay ku raad joogaan oo ay raadinayaan dad la sheegay inay dhalooyin gubanaya u isticmaaleen dabka markiisa hore, iyagoo markaa doonayay inay saldhigga dab weyn qabadsiiyaan. laakiin waxaa leeyahay
saldhigga meel u dhow ayaa dabkan xoog galihii uu ka kacay waaye marka shubha fara badanaa jira khasaaro weyn inuu meesha ka dhacay inkastoo laakiin israa'iiliyiintu waxay leeyihiin saldhigga iyo jaamacadda meel u dhaxaysa waaye dadkuna ma u soo dhowaan karaan midda kale haddana waxaa leeyahay 12 kooxood oo kuwa waxdamiye ah oo baabuur wata ayaa ku howlan marka dadku waxaa shaki badan ku abuuraya waxay leeyihiin haddii 12 kooxood ay waxdaminayaan meeshuna meel bannaan tahay sidee u damin karaan intaas qaraxyadii la maqlay maxaa keenay haddaba falanqeeyayaashu marka arrintaa aad bay ugu wareersan yihiin marka waxaan idin tusinayaa video aroortii hore ee saakay xilligii salaada subax magaalada Qudus ciidamadii oo ku faafaya xaafadihii dadka carabta iyo falastiiniyiintu ay deganaayeen waxay leeyihiin halkaana nala ka soo weeraray dabka ula ka u shiday ayaa meesha soo galay halkaasay galeen ma kaamirooyin ka arkeen ma dadkay iska weerarayaan lama yaqaano haddaba sida videoga ka arkaysaan waa ciidankii israa'iiliyiinta oo ku soo faafay xaafadihii dadka falastiiniyiinta iyo carabtu deganaayeen haddaba sheekadan ma qaar waxay leeyihiin falastiiniyiintu ma shirqoola dabka ma iyagaa shiday ma daday rabaan inay ugu marmarsiyoodaan oo ay ku qabtaan oo ay ku dhibaateeyaan sida sawirka ka arkaysaan way caraysan yihiin meel walba ayay jabinayaan meel kasta xoog ku galayaan sidaasay nagta ugu wadaan wax walba ay ku qaribayaan marka shaki fara badanaa jira humaag fara badanaa waxa ku daboolan laakiin alcumuum meesha inuu khasaaro weyn ka dhashay ayay khubaradu isku raacsan yihiin waxay leeyihiin dab intaas la eg oo intaas 12 firqadood oo kuwa waxdamiye kooxo waxdamiye ah ayaa ku howlan dabkana waa aragteen suu u gubanayo oo maaragtay holaca ka baxaya iyo waxa meesha ka dhacay marka wararka qaar waxay leeyihiin meesha gubatay waa saldhigga waa la inkirayaa qaar waxay leeyihiin sida iyagu ay sheegayaan saldhigga iyo jaamacadda marka waxay leeyihiin qaar dooda ku saabsan haddii ninka inuu wax guba rabo xataa dadka wax gubayaay dhul banaan maxay ka gubayaan ama jaamacadda ama saldhigga inay gubaan marka war badanaa la qarinaa leeyahay waxaa laga yaabaa qaar ay ku doodayaan dadka falanqeeyaasha waxay leeyihiin waxaa laga yaabaa dhexdooda inay dhibka sameeyeen kadibna la rabo falastiiniyiinta in loo saariyo maalmahan waxaa ka dhacay magaalada mudaharaadyo xataa waxaa laga yaabaa dad mudaharaadyada hormuudka ka ah oo yuhuudda dhexdooda ah inay maaragtay sooqa qabtaana laga yaabaa oo xataa guriga uu ku leeyahay Netanyahu magaalada Qudus dhowr jeer in la gala isku damcay haddana waxaa loo balansanaa mudaharaadyo waaweyn oo xoog leh inay halkaa ka dhacaan haddaba warbixinta kooban ayaan u soo galay tafaasiisha iyo sida ay wax u dhaceen intaasaa ku soo korortay mar walba waxaan jecelahay wixii cusub inaan idin la wadaago maadaama war qabyaa aan ka tagay xalay saldhig in la weeraray oo warkiisana aan lahayn laakiin hadda wararkii soo baxay waa intaan marka waxaan isleeyahay intaa wixii ka dambeeya waa ku sugan karnaa ilaa barnaamijyadeeda dambe haddii alla idmo iyo wixii soo kordha haddaba saakay waa subaxnimo Arbacaa taariikhduna ay tahay 26 bisha Juun barnaamijkan kooban ee warka degdega ahna intaas ayaan kusoo koobayaa ha u qaadanina barnaamijkii saddexaad waa ku jira haddaad daawan isaguna macluumaad aad u xiiso badan iyo Yaxya Sariic iyo gantaal cusub oo markab Israa'iil nagti laga geliyay wixii dhan ku jira saddexdii barnaamij caadigood ugu jiraan kan waa special program ama program gaar ah oo kooban oo barnaamijka qabyada ahaa wixii ku soo kordhay ayaan maaragtay salaada subax marka aan tukaday ayaan idin la wadaagayaa marka barnaamijkaas ayaa jira hawshu sidaas ku socotaa wixii wararka sheekadan ka soo kordhana barnaamijyada dambe ayaan idin kula socodsiin doonaa khiyaaray meel walba joogtaan barnaamijka la gareeyo oo share gareeya sidoo kale fariin iyo aragti waxa ka qabtaan waxa meeshan ka dhacaya waxay idin la tahay adiguna aqli idin kuma yaree soo qora bal aragtidiina iyo fakarkiina
sidoo kale barnaamijka haddaad ku cusub tahay pagekeena follow garay Facebook YouTube-kana subscribe saaro si aad mar walba barnaamijyadeena u hesho ku xirnaa barnaamijyadeena si aad u hesho warar xaqiiqa oo dhaba barnaamijkii koobnaa iyo warkii degdeg ahaa subaxnimadan inta ayaan kusoo gabagabeynayaa inta aan mar kale kulmayno ikhyaaray meel kastoo aad joogtaan waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo